odayaashii iyo waxgaradka ku nool degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo kulan ku yeeshay degmada Wallaweyn ayaa ka hadlay saameynta uu ku reebay dagaalo ku soo laablaabtay degmada iyagoona ugu baaqay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay wax ka qabtaan dagaalada sababay dhimasho iyo dhaawac ee ka taagan degmada Wallaweyn ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose waxayna shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Wallaweyn ay u soo jeediyeen inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka degmada badan iyo siniina nagadi oo Wallaweyn shan caleemo dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe waa inkii baaqana Soomaaliyeed wali degan Wallaweyn nabad aan ki baaqana nabad absi ma ila ma inkii baaqana muslim nabada daraadiya waan ki baaqoyn may ku odsadane madaxweynaha Koonfur Galbeed abda asiis lafta gareen eed boqolkiiba boqol ma xasantaan madaxweynaha oo farmaajo سلامنت بقولت مي أفرت القرآن كديسك سلامنت شرفت اسم صوبيدان إذا صوبيدان ما يدافع جيج شال هذا جر لهيت وحيد لما هذا إلهي إن الحديث الدنيا آخر قرطان إلهي أفيو شركة جراد وين قواني باق نبضت أو إندرانو لما الدولة كوفر قلبات يو دولة فترالك أو كقيب قاعدين نبدان هذا جيج وإن أنت كيف دينه nabadoon Abuukar Maamow Cabdiyo agoonka awdeed ayaa ugu baaqay qaybaha dirirtu ay ku dhexmartay degmada Wallaweyn inay joojiyaan dagaalka isla markaana ay ka shaqeeyaan nabadda shalay way dhamaatay maato una waa in doodo inay maatada shalay dhamaatay ama dhimasho haato ama dhaawac haato ama beer hinka seeto ama hinka seetoy heersho hinka seetoy iyo ku doodo hayne taas hal loo dhaafay mid liin dulqaadeedu korma muddooyinkan ayaa waxaa dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac ka soconayay degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana soo kordhayay baaqyada nabadeed ay dirayaan nabadoonnada ee ka soo jeeda degmada Wallaweyn ee ku aadan in la joojiyo dagaalada lagana shaqeeyo horumarka nabadda. Muuse Cusmaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.